الله u naxariistay qabuuraha iskool buluusiya ee degmada Xamarjajab waxaa maanta barqadii lagu aasay wariye Cabdicasiis Maxamed Cali Xaaji oo ka tirsanaa idaacadda Shabeelle ee magaalada Muqdisho. wariyaha oo shalay gabaldhicii kooxo hubeysan ay ku toogteen degmada Yaaqshid gaar ahaan xaafadda Tawfiiq ayaa aaskiisa waxaa ka qayb galay dadweyne kala duwan. xogayaha ururka suxufiyiinta qaranka Soomaaliyeed ee Nosoj Maxamed Ibraahim Macallimo ayaa sheegay inuu aad uga xun yahay falka dilka ah ee loo geystay wariyaha xilli uu u shaqeynayay bulshada. waxa uu sheegay inuu la qaybsanayo suxufiyiinta Soomaaliyeed dilka arxandarada ah ee loo geystay wariye Xaaji oo ahaa nin dhalinyaro ah dalkiisii dadkiisana u shaqeynayay. bismillaahir rahmaanir rahiim inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. waxaa maanta ay noo tahay maalin kale oo murugo leh. waxaan dul taagannahay qabrigii aan ku aasnay walaalkeen Cabdicasiis Maxamed Cali Xaaji oo ka mid ahaa wariyaasha Soomaaliyeed oo shalay galinkii dambe gacan ka xaq diran oo kuwa arxamlaawayaal ay ku dileen magaalada Muqdisho degmada Yaaqshid. waxaan murugada la qaybsanaynaa qoyska iyo ehelada uu ka geeriyooday. waxaanan uga tacsideynaa dhammaan bahdii saxaafadda uu ka geeriyooday Shabeelle iyo qoyskii iyo eheladii dhammaan dadkii uu ka geeriyooday in Ilaahay samir iimaan ka siiyo. annaguna waxaan rabnaa inaan maskaxda ku hayno maadaama aan nahay wariyaal Soomaaliyeed oo xilligan adag ku shaqeynaya dalkan in maaragtay la muujiyo calool adeeg. dhibaato badan ayaan haysata waana la dhibayaa laakiin calool adeeg waa Ilaahay wehelkii. waxaa lanaga rabaa maadaama mar walba dawladdii iyo la leeyahay qofkii waa la raadinaya oo aan la soo qabanayn inaan Ilaahay tala saaranno oo aan dhahno tawakkalna cala Allah waman yatawakkal cala Allah fa huwa hasbuh. marka waxaad xasuusataan qof walbana inuu maalin dhimanayo maalintiisana lagama dibdhigayo laa yastaakhiruuna saaca walaa yastaqdimuun. marka qof walba maskaxdiisa ku hay inuu maalin uu sidan oo kale u dhimanayo laakiin waxaa la rabaa wariyaasha Soomaaliyeed isku duubni iyo maaragtay inay kaga baxaan dhibaatadan maaragtay la soo gudboonaatay. sidoo kalena dawladda waxaan ugu baaqaynaa maadaama iyadu ay gacanta ku hayso amnigii magaalada in ay gacanta ku soo dhigto kuwii ka dambeeyay dilkaasi ninkaasi aan hubaysnayn. wariyuhu ma hubaysna wuxuu u shaqeeyaa shacabka Soomaaliyeed. marka ma aqbali karna maalin walba inaan maqalno oo aan joogno wariye Soomaaliyeed. waxaanad ogaataan qof walba inuu dhinto laakiin inaan sidan oo kale maaragtay dhibaatadan nala ku eegto waa waxaan runtii aad uga xunnahay. laakiin bulshada Soomaaliyeed aan la qaybsanaynaa taas. annagu kaligi ma dhimanno dad saraakiila la dilaa waxaa la dilaa dad rayidahoo kale. marka dadkaas aan la qaybsanaynaa laakiin waxaad moodaa annagu inaan si gaara bartilmaameed u nahay. marka waxaan leenahay kuwa dadka wariyaasha dilaya Ilaahay ha ka baqeen. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Cabdifataax Cumar Xalane ayaa tacsi kadib sheegay inay muhiim tahay wariyaasha Soomaaliyeed inay u istaagaan sidii shabaab ay isaga celin lahaayeen. waxa uu sheegay maalin walba in la leynayo suxufi Soomaaliyeed oo bulshada u adeegaya taasina ay niyad jab hor leh ku ridayso suxufiyiinta. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. walaalkay Cabdicasiis Maxamed Cali Xaaji Allah u naxariisto jannadiisii firdawsayd Allah ka waraabiyo. mar haddii gacanka xaq daran ku dishaahi Ilaahay baan jannadiisii firdawsa kaga rajaynaynaa. dhammaan ehelkii iyo qaraabadii iyo saxaafadii iyo shabakadda ka shaqeynaya idaacadda Shabeelle waxaan leenahay Allah u naxariisto walaalkeen. maanta waxaan rabaa inaan inta kadib iraado maalin walba wariyaa la dilaa Allah u naxariista baan iraadaa. wax inta ka dambeeya ma jiraan. wariye walba iyo shabakad walba marka koow waxaa looga baahan yahay foojignaan. marka labaad waxaa looga baahan yahay asturnaan. marka saddexaad waxaa looga baahan yahay cadowga inay iska celiyaan. maalin kasta madaxa la idinka goynayaa waad dhimanaysaan. meydkaan imaanaynaa Allah u naxariista baan leenahay. intaa wax u dhaxeeya waa inay jiraan. shabaabku bir kama samaysna idinkuna baraf ma tihidiin. waa inay xanuunka aanu dareemayno kala dareemaan ilaa laga arko wariye shabaab xabad ku dhuftay. wariye shabaab ilaa laga arko xabadda naga daymaya war iska dhiciyo doqonta oo aan aragno oo aan ka dul qudbeeyo wariye Soomaaliyeed oo ugus dilay cali dheer hal la togto. bilaa calaykum maalin kasta waa dilin anagu wadi mayno. Allah u naxariista wadi mayno.
tay yimaadeen asoo gurigiisa hor fadhiya xalabaan tagay saq dhexe bay xabada ku dhufteen tartiibay inta u baxeen ay raaceen ay iska baxeen ciidamada ammaanka waxaan leeyahay u dul qaadan mayno waa la dilay waana baxsaday naga waxaan rabnaa waa la dilay asagiina waa la dilay ama intuusan dilin baa la dilaan rabnaa ana ku hadlaya magacayga magaca maayarka caasimadda wariyayaalow cid idin maqani ma jirto cadowga iska celiya nin walba madaxaada meerax ku duubo maalin walbaan dul taaganahay wariye la dilay anu wariyaan ah kasa ku inaan afayeen gobolka ahay saxaafadan ka dhex imid aan iska dhicina doqonta dhagxa kama samaysna bullet proof maaha shabaab bullet proof maaha wallaahi baan ku dhaartay waa naga tabaririhi hal iyo laba haddaan ka dilna way didaya way cararaya doqonta la iska dhiciyo allaha u naxariisto waa nagu waajib waxaan rabaa inaan maanta maalin dambe idhaahdo shabaabaa wariya dilaan rabaa inaan idhaahdo hal la dilo shabaabka hal la dilo wallaahi aysan isxaan noo samaynaynin wax dan aysan naga lahayn inaan sheegniya naga rabaan 2 maalmood oo saxaafadda ku jiraan oo wariyay dileen la yiraahdo dhagxa maahan hal la dilo shabaabka wariyaashii ka qayb galay aaska ayaa dhankooda muujiyay sida ay uga xan yihiin falka dilka ah ee loo geystay wariye xaaji waxaanay dawladda si wadajir ah ugu baaqeen in cadaaladda la hor keeno kooxihii ka dambeeyay falka dilka ah ee loo geystay wariyahaasi Soomaaliyeed. Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. waxaan dul taaganahay aaski wariye Cabdicasiis Maxamed Cali Xaaji kama ahaan Shabeelle waxaan ka tacsiinaa geeridii naxdinta lahayd ee ku timid Cabdicasiis Maxamed Cali Xaaji oo shalay gabal dhici dambe lagu dilay degmada Yaaqshad gaar ahaan xaafadda Tawfiiq heladiisa iyo qaraabadii uu ka baxay ayaan murugta la qaybsanaynaa ka Shabeelle ahaanna waan tabi doonaa oo wuxuu ku noolaa doonaa qalbiyadana dhaxdooda laakiin ka maamul ahaan waxaan codsanayaa in baaritaan caalami ah in lagu sameeyo dilkii wariye Cabdicasiis Cali Xaaji wariyay ugu horeeyay oo Shabeelle laga dilay ma waa wariyay 13aad oo Shabeelle laga dilo marka adduunka waxaan ka codsanaynaa in baaritaan caalami lagu sameeyo dilkii loo geystay Cabdicasiis Cali Xaaji waana saxaafadda kaliya Shabeelle kaliyana kama bixinay wuxuu ka baxay saxaafadda Soomaaliyeed oo dhan nin aad u furan iska dabeecad wanaagsan oo ahaa ilaahay naxariis janno ha siiyo annagana waa ka murugoonayna kulay oo maanta waxaa naga baxay qof Shabeelle iyo saxaafadda ku weyn marka ilaahay waxaan ka baryaa in dambigiisa adduunyo ilaahay dhaafo. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.